السلام عليكم ورحمة الله. كسر هذا الفيديو كلو عصب موقال كان محن كو إيجي دونا مانتا سيدا ثامنا اللو دول سارو موقالة داد بدنا يسوي دي سيدا بعد ودول سارتا صور موقالة دا موقال كان قابنا أن مانتا دو كلو بدا إيجي دونا كسر هذا الفيديو اوكي صاحبيال si aad muuqaaladaada u dul saarato sawirka loo yaqaano thumbnail ugu waxaad u baahan tahay inaad soo samaysato thumbnail waxaa jira muuqaalo aad u fara badan oo aan ka soo diyaariyay oo ku jira channelka haddii ay raadintu kugu adagtana waxaan kuu soo dhigi doonaa descriptionka videogan ama qaybtan kore ayaad ka daawan kartaa markii aad soo samaysato thumbnail si aad mobilkaaga ugu dul saarato marka waxaad u baahan tahay application lagu magacaabo YouTube Studio. YouTube Studio waa application free ah oo aad ka helayso Google Play Store-ka waxaad soo furnaysaa Play Store-kaaga qaybta searching-ka waxaad ku qoraysaa kaliya YT Studio ama waxaad ku qori kartaa YouTube Studio. application waa kan application-kan ayaa laga baahan inaad soo install garaysato si aad muuqaaladaada u dul saarato thumbnail. markii aad soo degto application-ka waxaad u baahan tahay inaad soo furato app kujigiisa hore sida tan ayuu egyahay. runtii application-kan wuxuu leeyahay waxyaabo aad u fara badan oo aad uga maarmi karto computer. haddii aad doonayso sida loo isticmaalo application-kan muuqaal faahfaahsan ayaa jiro hadda kor ka soo diyaariyay isagana waxaad ka daawan kartaa calaamadda halkan kaaga soo bixi doonta. haddaba markuu application-ka YouTube Studio sida tan kuu soo furmo waxaad raadi doontaa marka muuqaalkii aad doonaysay inaad thumbnail-ka dul saarato muuqaalka korkiisa ayaad taaban doontaa kadib sidan ayuu kuu soo saarmi doonaa waxaad kasii dooran doontaa halkan calaamadan qalinka ay ku qoran tahay. markii aad qalinka soo doorato halkan ay kuu soo gudbin doonaa mar kale halkan waxaad ugu jeedaa marka meel ay ku qoran tahay edit thumbnail. ugu waxaa muhiim ah in YouTube channel-kaada uu verified yahay. haddii uusan YouTube channel-kaada verified ahaynin awood uma leed in aad muuqaaladaada dul saarato thumbnail sawirka loo yaqaano. haddaba halkan ay ku qoran tahay edit thumbnail ayaad taaban doontaa kadib halkan ay ku qoran tahay change ayaad kasii dooran doontaa wuxuu marka si toos ah kuu geyn doonaa sawiradii ku jiray galeriga mobilkaaga. waxaad halkan ka dooran doontaa sawirkii aad soo diyaarsatay ee thumbnail-ka ahaa. aniga hadda mid aan tijaabaan u diyaariyay ayaa jiro midkan ayaan dooranayaa. markii uu sidatan sawirka kugu soo muuqdo qaybtan sare ee select ku qoran tahay ayaad taaban doontaa kadib waxaad leedahay kaliya save ayaad leedahay sidaas ayuu kugu save gareynayaa amaba uu kugu dul saarayaa muuqaalkaagii sawirkii loo yaqaanay thumbnail. su'aashan oo marar badan la isoo weydiiyey ayaa maanta jeclaaday inaan idinkula wadaago muuqaalkan. haddii aad adigana qof inta badan isticmaala computer sidoo kale computerkaaga waad ka saari kartaa thumbnail waxaad booqan kartaa website-ka Creator Studio kadib muuqaalka aad doonaysa inaad thumbnail dul saarato ayaad halkaas ka raadi doontaa kadib halkaas waxaad ka raadi doontaa meel ay ku qoran tahay thumbnail sidaas ayaad ku bedeli kartaa. sidoo kale waxaan kaloo idinka raali gelinayaa inaan isbuucan muuqaalo soo dhigin sabab yar oo jira awgeed. waxaan filayaa muuqaalkan inaad ka faa'iiday. waxaa idiin soo gudbinaa anigoo Cusmaan waxaana inoo balana muuqaalkan kan xiga inta ka sugaysa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.